لعل هدي أقوم سكاسو دو يودنا أي ماذا هرجسي ماذا أظن ما حكوا قرش سنك aniga jiida hore inaan galo waa dagaalamay dhishikada si loo riday ilaahay way baray gaandariyan ka ahayd muqdishaan ka soo dagaalama Itoobiya hilibkiisa ku soo cunay ما سعنتي Itoobiya hilibkiisa iyo baalshi Mareykankaba ما سعنت waa soo cunay hadda kuwaas uma daahayo ما تقلنا مسا waa dagaalamaya ma dhishikada sidii loo riday orday aniga jiida hore ana tagayay oo dagaalamay waa dagaalamaya oo diinteeda u dagaalamaya iyo diinteeda dalkayga oo dagaalamay waa u dagaalamaya Somaliland waxa aqoonsi rasmi ah siiyay wadanka Israa'iil maxay aad kula tahay ورنا Somaliland wax la yiraahdo ma wanaqaan ma garataay Somaliland ma taqaanid Somaliland aqoon ma wali baad anigoo magacayga Ihsaan Abu Bakar haddii ay dhacdo Israa'iil inay timaado Falastiin iska badaayay inay diintan soo gureysato ina nafteeda aan ku hor bifadilaahi kariim anagoo ilaahay raala ahaanshaan aga doonay bini'aadinku wax wajaan aga rabin waxa ayaan daraa inay noqoto wadankii ugu horeeyay fiidiyo kol lagu meersado ma garat yaa ku meersaday Israa'iil ma garat aqoonsiga Somaliland horta anigu ku faraxsanaa waxaan 30 sano sugniyo gasal gaarnay guushi diintu iga masuuline asaqira nacabkuna Somaliland saadashi noo samato farxada ma la sooxa alla farxada ma la sooxa السلام عليكم soo dhawaada asxaabta waa anigoo lil baasa waxaan ku sugannahay galkacyo waxaan duubaynaa barnaamijkeenii qaybtiisa labaad oo ah sidee u artaan aqoonsiga Somaliland ay ka heshay wadanka Israa'iil hadduu soo gaaro muuqaalkana fadlan muuqaalkana la gare YouTube-kana booqo oo noo subscribe waxaan ku taaganahay dhabihii aan ku gaari lahayn 100,000 oo subscribe daawadi adigu sidee kula tahay aqoonsiga Somaliland ay ka heshay wadanka Israa'iil waqtiga la joogo Soomaali macquul ma tahay inay kala go'do oo ay noqoto wadan wixii fikir wixii commenti ah lanka commentiga noogu reeb muuqaalkana share gare inna wada saaxiibada jacayl barnaamijkeena dilbaasto soo dhow waa dhawaa magacaaga nin aniga Cabdulqaadir Foor aliyaa sax la foora soo dhawaan kuleenahay sidee u aragtaa Israa'iil inay aqoonsato Somaliland waxaan ku sheegaa Somaliland in la aqoonsado anoo la foora in la aqoonsado ka dhow soo xafaantay ma maxaa tiraahday Somaliland in la aqoonsado haye anoo Cabdulqaadir Foor in la aqoonsado ka dhow sababta ku sheegaya niyo Somaliland aqoonsashada waxay ku xiran tahay inay Soomaaliya fasaxdo Soomaaliduna central government waxyaalaha horta afar awood bay leedahay waa xiriirka dibadda sameynta lacagaha ilaahay dug difaacida dalka iyo xiriirka socdaalka soo xafantay ma nimankan waxay sameeyeen arrimo aan lagu tirgan bifaraag shadeen madaxweynaha Soomaaliya anoo hadda madaxweynaha Soomaaliya ahay feeta power baa ka soo saar lahaa waxa oran lahaa waxa ka jiraan inaan la xiriir dhanba waa khalad baa oran lahaa niyo fariin kala waxa u diriyaa horta ayag fariin baa u diriyaa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud fariin baa u diriyaa Xasan Sheekh Maxamuud waxa leeyahay rabtiyo gacaliyo siyaasadan jiliica oo booliska abisanta ka soo baratay siyaasadan jiliica oo booliska abisanta ka soo baratay siyaasadda madaxsalaha ka soo baratay jooji baa oran lahaa soo xafaantay ma waxa naga adkay abtiyo gacaliyo soo xafaantay ma Somaliland mid baa leeyahay warnimayo ilaahay baa quraanka soo ku yiraahdo walan tarday ankil yahuud wala nasara hatta tatba'tu millatuhum soo xafaantay ma nimanka adeerayaal wallahi wax wanaag inii wadan annagoo isku dara oo isku dana oo isku dala oo isku deegaana oo isku afa hadaa wanaag naga weedeen wallahi yahuud iyo nasaara in xamidna ka helay soo xafaanteen ma adeerayaal oo gacaliyo marka waxa leeyahay waxa kama jiraan waaye dalkeena inay joogtaan baa inay fiican Somaliland teeda kale magaca waa khalad ba Somaliland ku sheega hadda meesha joogno Somaliland sababtoo ah Somaliland hadii Soomaali dhulka Soomaali meel kasta oo Somaliland waa Soomaali dhulkeeda magaca waa khalad ba adeer gacaliyo oy macna waa soo dhawaa cadde magacaaga ifraax sidee horta aqoonsiga Somaliland ay siisay wadanka Israa'iil aduu samay kula tahay horta aan ku sheego haye habeenii maalin horta ma isku mid ba waa may sama horta cirre hadii badda Hindiya la geeyo xataa ma daahirsamayo aduu wax kale sheegaysay Soomaaliya waa isku Soomaaliya waa hal magac hadii laba magac u yeelana taas jabkooda ka heleen marka cirrow haddaad qabasho leedahay qabashada ka soo laabo dhaqan baa tahay okay dabcan Soomaali inay kala go'do waqtigan balka walaad maxay kula tahay waa waqti waa taas macquulba ma ahanba adoo hadda wiil yar dhalinyaro waa ka weynahay waa ku dhali karaa Soomaali fahmi hadda Muqdisho ma xaqay burbur maraysa wax badan ya Rangers wada aragtay maala cala la diray Itoobiya maala cala la dirnay kuwii Itoobiya diray Soomaaliya jooga yaa lagu soo hodine badda ku soo dhawaan dib uga durug okay lacala hadii aqoonsigaas u dhawo oo yuudna ay yimaadaan hargeysa yimaadaan oo ay
aduu maxaa ku qorshaysan ka aniga jiida hore inaan galo ma dagaalamaysaa waa dagaalamaya dhishikaada si loo riday ilaahay waa baray gaandariyan ka ahay muqdishaan ka soo dagaalama Itoobiya hilibkiisa ku soo cunay maxaa soo cuntay Itoobiya hilibkiisa iyo baalshi Mareykankaba waa soo cuntay waa soo cunay hadda kuwaas uma daahayo ma dagaalamaysaa waa dagaalamaya ma dhishikaada sidii loo riday warday aniga geejiida hooda ana tagayay oo dagaalamaysaa waa dagaalamaya oo diinteeda u dagaalamaya iyo diinteeda dalkayga oo dagaalamaya waa u dagaalamaya ninka wax iga bedelay mise ninka wax igu qabsan lahaa yimaado oo maanta waxa leedahay miyaa yuhuud dabcan hargeysa ma imaan karto wallaahi oo bilaahi oo talaadee timaado raggeena dib baan u dhignaa naagayna ku dagaalamayna wallaahi oo bilaahi oo talaasa maaha soo magac ilaahay maaha yaa wallaahi oo bilaahi tala ragga dib baan u dhigano naagayna dumarkaa ku dagaalamayna hadday yimaadaan hargeysa waa kuwe gaalada dhasho yuhuudda ah hadday yimaadaana waa garaaca والله sidoo artaa aqoonsiga Soomaaliland maanta ayaana ay siisay wadanka Israa'iil adu samee ku aqoonsiga Soomaaliland horta anigu waa ku faraxsanaa kaar ahaan ani ahaantayda waa ku faraxsanaa dadkaasna waligii waa taageersanaa haddana waa taageersanaa kow dadka horta de maanta Soomaaliya horta ayagaaba qariban be dadka horta dad wadan bay dhisteen meel bay u baxeen de wadankooda wadanka bilic badan oo maanta jirana anigu wallahi ma garanayo wallahi kowde de inay maanta de gaar u go'aana de xaq bay u leeyihiin maxaa Soomaaliya maanta yaala qabyaalad baa taale maxaa kale yaala marka Soomaaliland waa taageersanahay haddana hargeysa u socdaa i'tiraafkaasan qayb galayaani waxa i'tiraafkaasan ku jiraani hay wasaqta koodhe Soomaaliland ma galaya marka brotherkayga wallahi billahi Soomaaliya 100% waa taageersanahay de inay leeyihiin dadka waxa arkaya wallahi yuhuud bay raaceen wax noocaas anagu yuhuud maan raacin yuhuud dan baa ku wadanaa marka dantayda ka gaarnana de adar ayaga u taalaa ku boodayna chikamalin ma jirtaa hees aad u tala gashay i'tiraafka Soomaaliland way jirtaa 100% heestan way jirtaa hees waxa waaye laakiin hees dheer ma ahan hees yar gaaban laakiin waxaan rajeynayaa insha Allah hees badan aan ka qaado xidiga geesku hadda la soo cusbeysiinaya inaan ka qayb galo oo ku darsamo de fankayga iyo hubigayga aan leeyahayna in hargeysa ka bilaabo meeshan ka mir dhalin lahaa oo aan ku baalkay aan ku soo bixi laana in hargeysa noqoto hoygayga waxaan 30 sano sugniyo gasal gaarnay guushi diintu iga masuuline asaqira nacabkuna Somaliland saadashi no samato farxada man la sooxa Allah farxada man la sooxa oo sawiro magacayga waa Hanad hanadow sidoo aragtaa aqoonsiga Soomaaliland ay siisay wadanka Israa'iil wallaahi saaxiib waxa ayaan daraa inay noqoto wadankii ugu horeeyay fiideo kol lagu meersado ma garat yaa ku meersaday Israa'iil ma garat marka waxaan leenahay Soomaaliland haddii goosatay oo macnaha Israa'iil ay qaadatay yuhuud noqotay tabteeda ku socota anagu ma baahnina xaas fiican ha noqotaa leenahay xaas fiican ha noqotaa okay waxaan ku dinayaa aqoonsiga lacala haduu dhawoobo adee maxaa ku qorshaysan aniga wallaahi waxa ay qorshaysan inaan sheeganinba aan saa ku ilaawnaba laakiin shacabku ma dhibaatada masmaasuq waxa wada dawladda weeye shacabku ma shacabka Soomaaliland naftkooda ka soo horjeedaan markii qof dhifo macnaha aqliga laga xaday laga reebo weeyaan okay xasano sida arta aqoonsiga Soomaaliland ay ka heshay wadanka Israa'iil adoo sameeyay kula tahay anigu raanta waxay la tahay aqoonsiga i'tiraaf dawladda hadii yihiin tahay aysan ahayn wax kale isku dhex jirin waa soo dhaweynayna fikradayda hanta sababta Soomaaliya meelo badan ba Somaliland sidaan ka hadlo 30 sano ay raadinaysa i'tiraaf Soomaaliyana wax i'tiraaf iyo wax mustaqbal way ka imaan waayeen qof kasta maamulka soo hormarayo Soomaaliyeedna ama aqoonsi helayeen aniga waxay loo tahay guul bay loo tahay anaga soo arkay ana ka soo jeeday maamulka Puntland adigu maanta waxa ku faraxsan tahay Soomaaliya inay kala go'do ay noqoto wadan sida ay og tahay Soomaaliya qaar ba Itoobiya la degan qaar ba Kenya la degan Djibouti kali waa Soomaali intaas waa ugu hormarsan yihiin maamulo kale baa taabacsan yihiin marka adigu macnaha soo dhaweynaysaa soo dhaweynay aniga Soomaaliya maanta inay wadan go'yo noqoto aad u soo dhaweynay magacaaga Bashir Sheekh Maxamed bashiro sida arta aqoonsiga Soomaaliland ay ka heshay wadanka Israa'iil maxaa adigu sameeyay kula tahay anigu si hadii loo ogo soo dhaweynay aqoonsigaas maxaa sababay haddii dad islaam ah weeye Soomaaliland haddii aysan gaalnimo iyo wax kale isla socon waa soo dhaweynaynaa mid kalena waa ku soo dhaweynayaa haddii aysan xuduudaha Puntland iyo magaranaysa ku soo xadgudbayn
waa soo dhaweynayaa oo aysan dhulka magaranaysaa Puntland ay magaranaysaa ku magacaawnayd sida Sanaag oo kale magaranaysaa nimanka hadda khaatimo oo waagi hore macnaha la oran jiray aysan dhulkaas ku soo xadgudbayn ee intoodii ku ekaanayaan aad baan u taageersana laakiin hadday dhahayaan awood baan helay oo waa soo duuleynaayo magaranaysaa dhul baan qabsanaynaa taas ma taageersani adoo maanta waxaa ku farsan tahay Soomaali inay kala go'do Soomaali inay kala go'do waa la qaataa waliba sababtu ku tahay 40 sano isdul saaranta xamar waxba ka imaan waayay way soo dhaafay meesha joogto magaranaysaa ayadii baa isqabqabsanaysa balcad baa la gaari laayahay dawladdii waxay dhaafman aaday fila Soomaaliya magaranaysaa dadka xamar jooga waa dad waxa weeye magaranaysaa aan dawladnimo u jeedin dad magaranaysaa wada si kala sida awgeed waxay ku wanaagsan tahay in la googooyo gabigeedaba gobol laga sida imaaraadka kale taas ku fiicanta magacaaga Najmo waay Najmo sida artaa aqoonsiga Soomaaliland maanta ay ka heshay wadanka Israa'iil Soomaaliland way ku qaldan yihiin yuhuud inay ixtiraaf u raadsadaan Soomaaliya inay u raadsadaan beed sababtoo ah qaldan yihiin boqolkiiba lacala aqoonsiga hadduu dhabowo oo rumowo oo yuhuudna ay timaado Hargeysa ay timaado maxaa ku qorshaysan waa tahriibayaan hadduu Soomaaliya dhan waa ka tagaya Afrika oo dhan waa ka tagaya waa tahriibay xagaasa waa tahriibaya meesha wajiga qabtaa tagaya waa tahriibay waa ma qabtaa soo dhow waa dhow magacaaga Sabri Ahmed Sabriin sida artaa aqoonsiga Soomaaliland ay siisay wadanka Israa'iil adigu maxay kula tahay والله way la qaldan yihiin haye okay may ku qaldan yihiin da waxa ku qaldan yihiin qof oo yaani dad oo ii sheegay maxaa la yiri yuhuud inay aqoonsi u aqoonsato waa qalad aqoonsiga lacala hadduu dhawaado maxaa ku qorshaysan Soomaaliland gubo maxaa ku qorshaysan ina Soomaaliland gubo soo dhawaaya waa dhawahay magacaaga Xaad Qaadir waxaan ku dinayaa sida artaa aqoonsiga Soomaaliland ay siisay wadanka Israa'iil waa khalad ayagoo Soomaali sheegana inay yaani Israa'iil aqoonsi ka doontaan lacala aqoonsiga hadduu dhawaado adiga maxaa ku qorshaysan ma dhawaawi karo soo ku dhawaama inuu ma dhawaawa Soomaalida u diidanbo waa dal Soomaali ka tirsan see yaani aqoonsi u raadsanayay magacaaga alxamdulilah rabbil caalamiin naxmaduhu wa nusallihi wa usalli ala rasuulil kariim magacaygu waa Ixsaan Nuur Abubakar إحسان waxaan ku diinaynaa Soomaaliland waxa aqoonsi siisay wadanka Israa'iil maxay kula tahay ra'yigayga aadka u xun oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay soo dhaxmarsiinayo waxaan leeyahay dadka gaalada ama Israa'iil ha ahaato ama kuwa ugu liita ahaato wuxuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka nagu sheegay dadka muslimiinta meel walba ay ku noolin inaysan gaalada soo dhaweysanin maadaama ayaga dadka islaamka sheeganayo ay soo dhaweysteen Israa'iil garab siiyeen isku magacaabeen hadda anagu markaan u fiirino min cindillahi subhanahu wa ta'ala yaani wixii limid noqonayaan yaani yahuudi isku tilmaameen Israa'iil marka waxaan leeyahay lahaa dadkaasi walaalayna inay arinkaasi Ilaahay ugu toobad keenaan anqabada ku jirtaan iska saaraan dadka muslimiinta waa walaalo islaamnimadaana ka wada dhaxaysa inay diintooda ku walaaloobaan mujtamaca ay mideeyaan islaamnimo ku mideeyaan yaani gaal wali ma noqdo oo walaalo ma noqdo la tattakhiduu aduwakum يعني إلهي بوحون وتلمامي إن ولا لك دينين يعني عدو الله وعدوكم إلهي عدو جيسا أنا جنا وعدو جيني مركو قلدي إسرائيل يعني قرب سيسا أو ولا لك ديجتا أنا جنا حق وذا مرسيه هنا هذا حن كنت تلمامي إن أي من تشبه قوم فهو منهم إن أي حق وذا يدين حق وذا إن جمرين عالم إسرائيل waxaa lagu dhaxwatay magaalada Hargeysa dadkuna ay aad dabcan ugu faraxsanayeen aqoonsiga Israa'iil ay siisay maxay kula tahay fikradaasi waa fikrad aad u xun aad iyo aadna waan aga xumaanay dadka muslimiinta lagu ma talagelin inay taageeraan gaalada wax badan Ilaahay iyo rasuulkiisu way ka hadleen waxa loo baahan yahay dadka muslimiinta in ma garanaysa markaasi calankooda islaamka ay taageeraan dadka muslimiinta ay soo dhaweeyaan yaani waxaan aad ugu xumaa maanta wadan sheeganay islaam hadana dad gaalo ah soo dhaweysanayo dad gaalo calankooda kor u qaadayo taas waxaan leeyahay waa damiir xumo culimada meesha ku noolna waxaan u dardaarmaa dadka inay la hadlaan haddii ay garanaysaa noqon weysa in iska qabtaan inta markaas anqabadaas u taagan oo baaba ay bulshada mujtamaca u taagan adigu lacala haddii aqoonsiga ay dhab noqoto Israa'iilna ay timaado Soomaaliland timaado diyaar mu tahay inaad aad u dagaalantid waxaan diyaar u ahay insha Allah bifadlihi al-kariim anigoo ah magacayga Ixsaan Nuur Abubakar haddii ay dhacdo Israa'iil inay timaado Falastiin iska badaayay inay diintan soo guraysato inaan nafteeda aan ku hor bifadlihi al-kariim anagoo Ilaahay raala ahaansha aan aga doonay bini'aadamku wax wajaan aga rabin inaan dalkayga aan ku difaaco diinteedana aan ku difaacdo
diyaar baan ugu ahay soo dhow adhowa magacaaga axmed axmedow somaliland waxaa aqoonsi rasmi ah siiyey waddanka israa'iil maxay aad kula tahay walana somaliland wax la yiraahdo ma wanaqaan ma garataay somaliland ma taqaanid somaliland aqoon ma wali baaday walaal waddan somaliland oo ma taqaanin miyaa ku yaalo waxa ku yaalo war waddan lama yiraahdo ma garatay haye waa iska maamul goboleed ma garataay haye waa kaas somaliland wax la yiraahdo ma jiraan marka waa maamul hargeysa ka tirsan oo ka dhisan ma garatay waa kaas okay somaliland waxa aqoonsi siiyaa ku israa'iil marka ma kula tahay israa'iil inay awood u leedahay somaliland aqoonsi siiso war israa'iil hadda ayadaa burburtay ma garatay oo taag darno dunidoo dhan ay fiirsanaysaa israa'iil waxa ma aqoonsan karta ayadaa burbursan marka waa kaas israa'iil aan aqoonsan waxa weeye ma taqaana ismiinis aniga israa'iil walaalaan nahay فلسطين أنا لا دجالينا ما قرت تاسن واحد كي لا ملا ما قرت مركا إسرائيل هوري فلسطين وبابيس ما ترين معناها سوماليلاند اسكو حرتان ما رحت سوماليدا كليتا أي دباتيان taa wax suurtagal ma ana Soomaaliland ma aqoonsanin الرحمن الرحيم waxaan ka xanaaqsanahay oo ka xunahay aqoonsiga la siiyay Soomaaliland waa baadil iyo Soomaali kala qaybis iyo muslim naciib waxaan ka codsanaynaa walaalaha Soomaaliland inay ka soo laabtaan oo waxaas Ilaahay uga toobad keenaan waa yahuud wax loo dabaaldego maaha wax loo sacabiyo maaha waa wax laga xumaado waa muslim naciib waxay rabtaa meel ay muslimka uga duushay Soomaalida ay ka layso dan iyo aqoonsi iyo daacad kama aha daa ka laabataan leenahay ka toobad keen Ilaahayna ha u laabteen aqoonsigaas u dhawowo adoo maxaa ku qorshaysan aniga waxa ii qorshaysan inaan dihuudaas isaga celi lahayn inaan taladeeda firinkeeda inaan qabano ma dagaalamaysaa way aad iyo aad dhagax iyo bir iyo baangad waxaan sanaa ku dagaalamayna ku dagaalamaysaa waana mahadsantahay